dhamaantiin sax baad baa islaamay muuqaalka waxa ramaanta inaan saddex qodob uga hadlo mid kamid ah keedigrida ugu weyn cryptocurrency ee loo yaqaan real world asset ama RWA muxuu yahay qaybta waxa ku fiirin doona faa'iidadiisa iyo waxyaalaha muhiimka ah mashruuca ku jirta qaybta u dambaysa waxa ku fiirin doona coinka ugu weyn oo ugu muhiimsan keedigriga real world asset ka ku jirta marka door coin oo macquul ah qaybta dambaysa fiirin doona oo muhiim tahay keedigriga inay ku maalgashan tahay intaan muuqaalka sax baa loo gudbin akaademiyada 125 waa Discord ama qiimo dhimis munaasabad arbadaanta oo marka laga faa'iideysto in ka badan دور إلى 20 حرفود بكتير online business كا e-commerce دي أهل هاي forex dropshipping دي أهل cryptocurrency فيديو editing web design كي coding كي إلى جديد course بكاينا coding كي digital marketing كي graphic design كي على بابا كورس بدن بكتير مع المية خبرة كل دول ماشي بكتير مركب ويب سايت كانوا معقلة بس لكم أما نمبر كانت تجارة لحرير وأوفيس كان الصومالية حرمين كل دول أوفيس كل ناي لحرير أياك وعاوني وهيك مركب محي RWA أمرسيل وود أصل ومتك مساحة بدرت كي تجريد وين cryptocurrency طبعا مين كورس باتشرو AI باتشرو AI agent باتشرو gaming bachiro DeFi bachiro categories badan bule marka RWA waa mid kamid ah ku ugu weyn waxaan dhihi karaa waa ku ugu muhiimsan qasab tahay in qof kasta inuu cryptocurrency maal gashto inuu fahmo coinka ugu weyn ama project ugu weyn oo ku jiro marka muxuu yahay real asset magaciisa ka dunida waa real world asset waa hantidii caadiga ahayd ee dunida taalay oo token laga dhigay maxaa kamid ah real estate commodities ama badeecadaha kala duwan hadii noqon mataqaana dahabka oo kale hadii noqon shidaalka wax kasta badeecada iyo financial instrument waa ayaga oo blockchain kala dhex keenay ama tokenized laga dhigay oo tokenization lagu sameeyay marka waxa dhici kala waa tangible asset key oo tokenization lagu sameeyay basically real asset ee maqasho intaas sidoo kale waxa dhici karna waa bridge isku xigo traditional financing iyo blockchain marka waxa loo yaqaan traditional financing baa laga soo tagay ama TradFi waxa loo yaqaan waxa loo sugo waxa loo yaqaan decentralized financing ama DeFi hantidii dunida taalay caadiga ahayd oo guryaha lahaa oo dahabka lahaa oo shidaalka lahaa waa iyada iyo blockchain kala dhex keenay oo tokenized laga dhigay coins laga dhigay adoo meel dunida jooga aad maal gashan kartid marka basically mashruuc ku fadhiya waa intaas waa hantida caadiga ahayd oo fiscalka ahayd ayadoo saaxiibayaal tokenized laga dhigay ama digital asset laga dhigay marka waa inaan fahantaa waxa maal gashanaysaa waa hantida caadiga ahayd oo blockchain la dhex keenay wax saas u weyn maaha marka inta waa inaan fahantaa saxbal category waa muhiim sida real estate ka dunida hadda ay muhiim u tahay oo runtii passive income laga helo magaalo badan runtii laga sameeyo real estate saxbal wax lagu qiimeeyaa waa top 5 business ka dunida qofka gala oo runtii ka taajiro millionaire ka noqdo marka sidaas si lamid ah marka cryptocurrency la joogana waa ayagii oo waxa way token laga dhigay marka waa dareemi kartaa faa'iidadaas la rabaa inaa ayadoo tokena oo maanta fursad lagu siiyay intii Binance aad soo furatid ama waxa way Trustwell aad soo furatid adoo halka joogo lacag yar ah ku dirsanaysid faa'iidooyinka sax waxa kamid ah waa dhaq marka la furi liquidity oo waxa way si fractional ah baad u iibsanaysaa lacag yar baa ku iibsanaysaa project weyn chapa ka iibsanaysaa waa maal gashanaysaa marka waxa ku beegreysan yihiin traditional finance caadiga to kala saxbeel faa'iida ka sameyn kara marka waxa inuu computerka aad coinka waaweyn ugu macquulsan real asset ka inaa kula wadaago marka saxbeel coin market hadii aad timaadid qaybtan aad ku dhiftay category-ga RWA si qaas ah ku xulaya inta kaliya wuxuu ku siinaya mataqaana coin market cap ku jiro oo real asset ka mashruuc weyn marka waa kana J-Link baa la saaxiibayaal waa kan ugu weyn waana kan ugu muhiimsan market cap ahaan marka noqotana asaga runtii ugu weyn koonka saaxiibayaal qiimihiisa waa $40.64 weeye project ugu weyn saaxiibayaal oo koonkan qaabilsan yahay project waxa weeye wuxuu isku xiraa smart contract iyo real asset ka weeye marka blockchain-kiisa oracle ka u shaqeynaya fikirka intaas buu fududeynaya marka dabcan waa project weyn weeye real asset ki smart contract-dii buu isku fududeynaya in isku xirmaan blockchain-kiisana shaqadaas u qabtaa qiimihiisa saaxiibayaal hadda waa $40.65 weeye market cap-kiisana waxa weeye 9.3 billion weeye saaxiibayaal koonkan all time high uu soo gaaray waxa weeye saaxiibayaal $52 buu gaaray 4 sano ka hor 2020 haddana waa $40 waliba saaxiibayaal news amaanada ka akhrinayay qolyahan J-Link mashruuc soo wadaan architecture design bay soo badhigeen ecosystem isku xir doono bangiyadeena mataqaana traditionalka iyo waxa weeye blockchain marka waa dareemi kartaa waa asna waa big project ee sanadkan ay bilaabeen marka J-Link saaxiibayaal suuqa hadda mustali ogaa u dhacsan yahay laakiin hadii aad fursado kale heshid oo inta ka sii jaban waa fursad kale waa si iibsan kartaa laakiin hadda qiimaha hadii aad ku iibsatay long term ahaan it's perfect wax problema ma jiraan marka J-Link saaxiibayaal waa koon runtii macquul ah aadna waxa way u weyn waana koonka hogaamiye saaxiibayaal real asset ka xagee kale ka dhaa marketska hadii aad tagtid Binance waa kale ka dhaa Uniswap waa kale ka dhaa sidoo kale Binance US Bitcoin Base OKX Max Bitget most exchange waa kale ka macnaha waa koon aad weyn weeye koon kale waa saaxiib waxa weeye Avalanche blockchain saaxiib wuxuu fududeeyaa dhanka management-ka buu ka support karaya blockchain-ka iyo real asset-ka marka asna waxa dhigi karna waa mid ka mid ah project ugu weyn real asset wax loo yaqaan qiimaha hadda mana saaxiibayaal waa $19.64 weeye market cap-kiisa waa 8 billion kii hore dabcan aad buu yahay waa coin saaxiibayaal waxa weeye muhiim ah maximum supply-giisana waa jidaan
waa 700 oo waxa weeye milyan weeye meesha ugu sareysa oo gaara ama all time highs waxa waa 3 sano ka hor 146 marka maybe in ku laabto meeshiisii hore weeye marka saxbal waa koonta aniga aad u taageero oo listigan runtii igu jiro meelaha kale kale waxa kamid ah Binance USD Binance adiga Coinbase waa coin caan ah dabcan exchange-da badankooda waa ka heli kartaa marka saxbal asna waxa dhigi karnaa waa project-ka labaad oo la rabo category inaad at least $50 xataa kaysatid مشروع وين لونج تيرم أهم بقى نقاضي كون كستحني عن أدو تاجر أو ريلو أست كوا ويا كوانتي بلدا بلوكشين سحب يال وح اسكحرة أم زكنا تجريا different blockchain اسكحرة زكلا سحب يال integration بوح أصلا بلوكشين ريلو أست مركزتي أدب أو تاجر كون كانيا قيمتها طبعا طلبات زدت ويا ماركت كاب في سنة وحوي واسقال بقول أفرتني تدو مليار ويسحب رنتي ماركت كاب كيسة وكل مصل بليون ويا marka long term ahaan waa loo gali karaa total supply-giisana waa 40 milyan qiimaha saaxiib yaal qiimihiisa waa intaas meesha ugu sareysa oo gaara 478 dareemka runtii koonkan aad baa loo soo daadiyay maybe inuu ku laabto waxa way odta maayis exchange-da aad kale kala saaxiib yaal waa dabcan exchange dhan waa kale kala Binance ugu horeeyaan Coinbase Max ku jira Cookon Kraken marka mashruuc weyn aniga ishaana ku haya aad baan saaxiib taageer baribi aniga saaxiib financial advisor mihi aniga la tii dhaqaalmi disclaimer mar baa sheega educational purpose weeye waxa aniga coinka maalgashada weeye information box sida do your own research adiga iska baar intaada maalgashan koon kasta xab waa kana waa koonka loo yaqaan algorand runtii hadda wuxuu mariyaa 0.21 market capisa waa 1.8 billion weeye total supply-giisa waa 10 billion weeye meesha uu sareysa uu gaar all time high saaxiib waa kana waa $3 marka yes maybe in hada meesha ku laabto runtii waa koon saaxiib runtii muhiim ah algorand listigan waa ku darsan karaa koonkeena ku xoo saaxiib waa koonka loo yaqaan Mantara mid ka mid ah biyaal project weyn weeye RWA ama real world asset ka weeye market cap-giisana waa 6.3 billion supply-giisana 1.8 billion weeye runtii aad badan yahay haddii dhakaan aan fiirina meesha u soo gaarayna waa $9 buu gaaray marka Mantara saaxiibayaal waa koon ka mid ah ugu miisan market-kiisa haddii aad tagto Binance Bybit OKX Bitget Mexico kun gida waxaas dhan waa kale kala marka waa project weyn weeye meel badan ka ugu dambeyn saaxiibayaal koonkan ugu dambeeyo waa kan loo yaqaan Hedera waliba saaxiib Hedera sanadka soo dhaafay performance-giisa ma fiicneen asaga iyo XRP iyo Dogecoin ba labadaas ay ku jirin AWA performance-giisa ma fiicneen marka muuqaal waa ka sameeyay gooni ah koonka wuxuu kamid yahay sanadkan meel fiican gaari doono aniga saaxiibayaal qiyaasteeda aqoontayda marka waa koon fiican hadii rasiil bonto baad joogaa waa 9 billion market cap-kiisa maximum supply-giisa waa 50 billion weeye meesha ugu sareysa u gaarina waa 50 weeye marka all time high-giisa inuu soo laabto macquula 3 sano hore ugu dambeysay inuu soo taabto marka mid kan coinka real asset waa weeye exchange-da badankooda u jeedaan waa keenaysa marka yes saaxiibayaal guud ahaan cryptocurrency waxaa jira wax la narrative marba lacagta meel bay gashaa mar lacagta waxay gali ka dhaasay saaxiibayaal gaming-ka mar meme-koos bay gashaa mar AI gali ka dhaa mar AI agent bay gali kartaa ama mar bitcoin guud bay gali kartaa sometimes marka aad u eega lacagta way gashaa marka mid kamid ah aniga strategy aan isticmaalo waliba ardayda koorsada crypto aan ku baro waxa weeye waxa loo yaqaan diversification portfolio in coins kasta laga helo oo coinka guud ahaan cryptocurrency oo ugu macquulsan category kasta inta ugu weyn at least akaysatid iyo kuwa yaryar soo kala akaysatid sifa hadii lacagta gasho meme coins ka ka qadaysid AI aad ka qadaysid AI agent soo kala ka qadaysid AWA ka qadaysid gaming ka qadaysid DeFi ka qadaysid taas marka macnaheeda in meel kasta lacagta gasho aad ka faa'iidaystid laakiin hadii aad category kasta aad ku jirin waxa macquul ah buranka inuu ku dhaafo oo lacagta narrative inta dhacdo game ka gasho hadii aad game ku jirin buranka uu ku dhaafay sanadka faa'iido inaysid waa inaad ka daba sugtaa marka taa aad ku urtay waxa la sameeyaa diversification portfolio wax loo yaqaan waa la isbalaariyaa coinka dhan categories ka dhan waa la isku balaariyaa dan hadhow hadii faa'iido soo gasho oo halka lacag lagu sheego qaybtaas at least burankaaga waa heshay qaybka lacagta waa heshay saxbaad baa in salaamay rabada wanaagsan ciao ciao